Todoba siyaabood oo aad ku yeelan karto ama ku horumarin karto shakhsiyadaada. Kow, nin dhagaysigiisa wanaagsan yahay noqo. Dadkoo idil waxay raadiyaan mid dhagaysta, laakiin ayaga ma ahan kuwa ayaga isfahmaya sababtoo ah waxaa ka maqan dhagaysiga. Mar walba aad tahay qof dhagaysiga ku wanaagsan, waxaa heli doontaa dad far badan oo adiga ku garab istaagsan oo sirahooda kuu sheegtaan. Labo, noqo mid wada sheekaysiga ku fiican ama ku wanaagsan, sababtoo ah saaxiibbadnida iyo dumar badnida waxay ka imaadaa sheeko wanaagsan iyo sheeko far badnay oo qofkaasi uu haayo. Saddex, la kulan dad cusub. Mar walba aad dad cusub la kulanto, waxaa yaraanaya negatifkaaga iyo xumaha aad lahayd dadka kaa aamisnaayeen. Waxaa noloshaada ka baxayo dadka ayaga aragtida xun ka haysta ee noloshaada. Afar, u fiirso muuqaalkaaga kana ag dhawaaw kuwa aragtida wanaagsan ka haysta. Ha ka ag dhawaanin kuwa aragtida xumaanta ka haysta. Mar walba isku rabto inaad isbadasho, beddelkaaga waxaad u raagsataa dadka wanaagsan oo adiga wax kuu siyaadiya. Shan, noqo mid madadaalo leh oo dhanka qosolka ah, sababtoo ah dadkoo idil ma jeclo qof xirxiran oo madadaalo lahayn oo aamustiisana ay badan tahay, laakiin noqo mid madadaalo leh si ay dadka kugu soo xirmaan. Lix, u heeli oo garab istaag dadka kale, sababtoo ah dunidaani waa mid weyn. Ilaahay seemka ma wada dhigin dadkoo idil, dad baa adiga kaa hooseeya kaa liita, kuwaasi u tur oo caabi si ay noloshaada u daacadnimo u yeelo naftaada, dadkana si xushmad leh ula dhaqan si ay dadka kuu ixtiraamaan ee kuu sharfaan oo kuu xishmeeyaan.